wararka laga helayo wadanka Giriiga ayaa tilmaamaya in dad badan oo Soomaali ay ku xaniban yihiin jasiirad ku taala dalkaas. dadkan ayaa gaaraya 35 ruux oo badan Soomaali waxaa sidoo kale la socda dad ka socda wadamada Yemen iyo Eritrea. Dowladda Giriiga ayaa diiday inay gudaha u soo galaan dalkeeda waxayna sheegtay inay halkaas ka dhaqaaqi karin. jasiiradda ay ku go'doonsan yihiin dhalinyarada u badan Soomaalida ayaa lagu magacaabaa Chios. dadkan ayaa soo maray wada dheer u dhaxaysa wadamada Giriiga iyo Turkiga. xogaha aan helayno ayaa intaa ku daraya in xaalado adag ay la soo gudbanaadeen dadka isugu jira Soomaalida, Yemeniyiinta iyo Eritreyaanka, iyadoo biyo la'aan iyo gaajo daran halkaas ku wajahaya. sawiro ay baahisay warbaahinta ayaa lagu arkayaa hooyooyin dhabta u saaran ilmo yar, kuwaas oo wajiyadooda laga dareemayo dhibka iyo rafaadka ay la kulmeen. waxayna dalbanayaan in gurmad loo fidiyo, laakiin ma jirto cid hadalkooda dheg jalaq u siisay. si kastaba haatee, dhalinyarada Soomaalida u badan ayaa naftooda ku waayaya tahriibka, iyadoo dalka Soomaaliya uu kheyraad badan